haddaynu wararka Soomaaliya hore ugu socono gudoomiyaha wakiilada golaha wakiilada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ku dhawaaqay in berri oo ah 11ka bishan August maamulka Puntland lagu qaban doono doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa golaha u soo gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka oo ay ku jiraan 8 musharax oo haween ah iyadoo 3 ka mid ah kuraasta aqalkaasi sare ee maamul goboleedka Puntland dumarka si gaar ah loogu xiray. haddaba maxaa guud ahaan ku horgudban qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya maxaa hor yaala dumarka siyaasadda ku soo biiraya ee Soomaaliyeed waxa eegaya haddaba dhibaatooyinkan haweenka haysta Maxamed Xasan Dhalo. dugsiga Maryama ee Garowe waxa maanta ka socota doorasho ardaydu ku dooranayaan cidda hogaaminaysa. aad baa u mahadsantihiin maanta ii soo doorateen waxaan rajaynayaa berina inaad kula dhaqmaysaan ay kula shaqayn doontaan. Hooyada Daahir Xasan waa 19 jir doorashadan ku guuleysatay waxa ay waligeed jeclayd in ay bulshada hogaamiso. iminka oo ay ku guuleysatay guddoonka ardayda dugsigan waxa ay doonaysaa inay qabato qorshayaal u degan inta awoodeeda ah. waxaan jecelnahay dhalinyaro hadaan nahay oo macadka aan dhalay ardaydeeda oo dhan inaan baxno oo masaakiinta aan badan caawino anagoo kooxa oo waliba qorshe badan aan ku soo wada jirnaa. hadii waxaan jecelahay inaan ka sii mirgaarno yaani ka sii mir dhalino haduu Ilaahay idmo ardayda aqoontooda aad ka liidatana inaan dhisno oo aan garab istaagno haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idmo. doorashadan da'yartu waxa ay ku soo beegantay iyada oo magaalada Garow la isu diyaarinayo doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii madaxweynaha Puntland ku dhawaaqay liiska musharaxiinta doorashada aqalka sare. qoondada dumarka oo indhaha lagu wada hayay waxa muuqata in Puntland ilaa iyo hadda ay xaqiijisay tan aqalka sare. baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 xubnood oo laba haween yihiin ayaa halka ku dooran doona 11 sanatar ee Puntland ku matali doona aqalka sare. dumarku waxa ay qabaan rajo in ay siyaasadda si mudan u matalaan bulshada waxaase jira caqabado siyaasadeed kuwa dhaqan iyo dhaqaale oo ku gadaaman. waa ogtiin culeysya iska jira golaha shacabka markii la tago beel walbaba waxay leedahay nin baan rabnaa dhaqankii beelihii culeysaas waa jiraan laakiin insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan xaqiijino inay qoondada gabdhuhu soo baxaan hadii Ilaahay idmo. haddii la xaqiijiyo qoondada dumarka guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya waxa ay dadka qaar ku doodayaan in haweenka siyaasadda gala waxqabad bulsho guud ha joogtay ay hor taallo in ay si gaar ah wax uga qabtaan baahiyaha dumarka. intaasoo haween ah oo waa nagu jira siyaasadda ma aragno haween inta isu soo abaabuleen ilaaba xeerka sharciga waa in la dhaqan galiyo oo awoodooda muujinaya taa waxaan oran karnaa waxay ka gaabiyeen gabdhihii maadaama gabdha ay matalaan oo gabdha u soo qareemeen gabdha halkaas soo gaarsiiyeen waa in iyaguna sidii meesha loo soo gaarsiiyay si ka badan ee gabdhihii xuquuqdoodii ay u helaan. siyaasadda Soomaaliya guud ahaan fari kama qodna in dumarku helaan matalaadda si la mid ah sida ragga waxaase muuqata in inta yar ee soo baxda looga fadhiyo dadaal ka badan kan ragga. Maxamed Xasan Dhalo magaalada Garowe.